tegi doonaa gabagana wuxuu ku bilaabmayaa sidan indhaweyto geeraar ma qorin qaabku leeyahay dibnahaygii waataan qafilay qiilkii maansada waataan qarbuday maalintay quruxda seejeena qaafiyada waataan ka hadhay qodobadiisii aragtida qadiyadiiyo waxaan qariyo suugaanta qalloocaaga maantaan arkaan qaafka curiyaaye kolley kama qatoobay haddaan qeexo hadalkayga wacyigaan qarsoomayn haddaan qunugu luuqeeyo caqligayga waxa qaban la'een qaadan kari waaye bulsho yahay dareenkay qasbiyo qaaca mulugteeda qoontaad ka kici weydebaan kuu qayaxayaayo qaylada waxaa iigu wacan hooqistiga maanka soomaaliya qabiil kama hadhaan qoliyo reer baasifaan qaraxa weligaa qiyaad waad ku qanacdaaye qarashtaa warkeediiyo inaad dheef ka qabataaye waxaan qodoba kuu goyn karay qorof yaroo waxaan qodoba kuu goyn karay baad qadarisaane kolay tahay quraaca waxaan jaray qolof yaroo liina adigaa quweeye maxaad dhaxal ka soo qaaday qoloqolo hadday saa taho qiimo laga waayay ii sheeg khasaaraha waxaad kaga qamaamayso su-aashaa qadeediya haddaan qunuga laafiyoodo laba aan isqabanayn haddaan qaafka ka caddeeyo tusaalaha haddaan kuu qadimo qaranka naafeeyey bulsho wada qarribantoo xumaa qiilu daynaysa qof kastaa wanaagii qarshoo bilow qayshaatay qurux baan u dudayaa haddana qaadan kari maayo isma qabato labadaa qorshaad qoonyuu falaysaane qaladkaa miyaadaan lahayn quusta kugu xeeran haa afartaa araar qaab lehiyo qaradha suugaanta qaranqaaradii maanka taal qulub wareerkiidha indhawey tixqeedhiinahayd qabatinkeediidha gabaygayga qaangaadhayiyo qarawa laabtayda afar kalena qowlkaan akhriyey qodobadiisiidhe qaylada ujeedkiiyo haddaan toosu mudoqoonta waxa aan la qowdhamayo een jiifu qaban waayey qurun yahay waxaad eedaybaan kuu qadimayaaye qabyaaladda inaan jecel lahoon qurunka muunayno lama qarin karoo waad og tahay qaabadaa tahay ee dulyahow qaraabiyo ehelo qolo la maamuuso khasaaraha miyaad ka ilbaxdaa qawga iyo laagga bulsho yahay qariib baad ahayd tan iyo qaabiila qandhadii doraad baad ogeyd qaabkii loo jabay haddii aan qiyaamihii shalay lagaba qaangaadhin hebelkaad qabiilaysigiiyo qoysku daba yaacday qorshalay ininkaad dooratee qolo ku taageertay qarannimo inaad ugu dudaa waa qalbila'aana idinkaa qaldane maalin baad qaban lahaydeena qiimeena waad kari lahayd qaabaduu yahay qaamuuska adigaa ka hadhay qowl laguu dhigay qabyo taagan qisadii iyo dhacdada qalinka loo diidiyo taariikhda aan cidi qorayn lagana qaangaadhin waa waxa khasaaraha ku baday tan iyo qaabiila qarni hore halkaad eedaybaad saaka qabateena dulliga adaa qaayibo yeelay quursiga ee qayladii aan kuu soo direed qaado garan weyday bulsho yahay qalloocane adaan qiimo garanayne murtidayda qaabkaan u dhigay qowlka ereygayga dhawaaqaygii waa qoonsateen waana qariseene qorsho dhow waxaan kuu sawiray qeexay midabkiisa inkastoon qadiimiga fogiyo muujay quruxdiisa isma qabato qaabkaa tahiyo qayladaan dirayo cabasho iyo qaaqdaad haddeer soo qadimanayso sawtaad qareenka u ahayd qoomamada caawa qururuxiso adhi kama ilbaxo tan iyo qaabiile qoonyahow sidaasaa tahiyo qaabka xoolaha ee qoonyahow sidaasaa tahiyo qaabka xoolaha ee haddii aad qurgooyiyo misana qalasho doonayso inaan gabayo qaban qaabiyoon qeexo hadalkayga alla qaniyo qalad buu igu yahay maanta qowlkan iyo u qushuuca hooggii mar kale qaadan kari maayo afartaa canaantaan qallibay qarowga laabtayda qorshihii iyo ujeedkaan lahaa qodobadiisiidha afar kalena qaabkaan u dhigo quruxda suugaanta iga qabo balqoon yahow dareen qowlka ereygayga qafladiiyo dhibaatadan qafilan qaadan kari waaga qadar eebbe qaybtii ahee qanigu noo keenay qoon yahow intaad sabab u tahay qaacan kugu yoomay bal qiyaaso maantaba waxaad adigu qoondaysay dacar iyo qadhaadh baad og tahay qaaq inay tahay malmalkii adaa qooshtayoo qooyay xabagtiiya sidee quud macaan ugu dudaa waa qisiyo yaabe qorshahaagu soomaaliye wuu qaldhibayaaye dayacaaga qaangaadhayeed qiilu dayanayso qaaquul dagaal iyo intaa qulub ma daysaane qaynuunka waa necabtihiin qodobadiisiiyo musuq iyo qaxaad jeceshahoo qiimo gelisaaye markaad adigu qalabaa gadiga qiiqdo dunidaadu halyeygii markaad qalato iyo qoodha gurigaaga qabri maalintaad ku hubsataad qiiro shidataaye intaad qabiil iyo tolla-ay quruxda moodayso daraasado ma qaban qaabisaan qaabkii nololeed ee iska daa qoraal iyo dhigaal waxaad qorshaysaane qalad iyo mushkulad kama kortaan tan iyo qaabiili adigoon qardoofadii horiyo hiba nin qoontaada iska qaado adigaa qorshaha qow ka raariday khiyaanada siyaasiga kolley kama qancaysaane qaraamkii markay kuu shidaan qiirada iyo beenta muusigay mar hore kugu qaldeen qaacigi iyo heesta qalbitaabadkay daarayaan qaado taladooda khuraafaadka waad aamintaan qiimo waxaan leynay iska qanacsidaadii mar kale qaabka adhigooda soo saara caadifi qab weyn quursi kugu maale masiirkaaga ruuxaan qadarin qoomo noloshaada qulanjada midkuu haysta iyo quraca meygaaga quwaddaada duul beeniyo dilaya qaangaadhka kumayaal dugaagoo qarsoon baad qadarisaane qarankaaga kuwa dhaawaco
qolaba meel geeyo quud nimankii kugu doorsadiyo qarash yar oo liita shalay tuugii qoon yaho ku xaday qaanna celin waaye qasnadaha raggii mariyey baad qaran u dhiibtaayo masab iyo xil baad qabo dhehdaa qoonkii berigii iyo qurun iyo xashiish beeratooy waad qarribanteene maxaan anigu kuu qaban karaa qabarku naafeeyi afartaa qisdiga maanka iyo qaradha laabtayda qaranqaaradiian hursadiyo qulub wareerkiidha afar kalena qaaca igu shidan uurada iyo qiiqa qalbigayga waxa yaalla iyo qarowga ruuxdiidheh inahaa qadeeyay haddaan qunuga laafiyoodo guurow haddaan qeexo iyo qodobka suugaanta gabayadii qarniga waxaan curshiyo qiiradiyo heeso gabayadii qarniga waxaan curshiyo qiiradiyo heeso qaramka iyo geeraarintaan duubay quruxdiisa imisaan qaniiciyo xadiis qowlsan ugu yeedhay kolley waa khasaaree intaan qiimo gelinayay haddii uu dadkani qaadan lahaa taladan qaabaysan quuska ma ahaadeen tixaha qodobadoodii qaylaan la dhuubtoo hadeer qaanac baan ahaye qalbi dhagalaa baan la hadlayaa maanku qoy waaye duulaan qur-aanka iyo waxyiga qaadan baa jira ee maskax dhagaxa qaabkii ahoo qowlku soli waaye qalfoofay muraayadii qalbigu qaraxday oo yeedhay duuluu qabiil kala qoqobay kalena qaybqaybshay ummadaan qadiyad wada lahayn qoloba meel aaday iska dhaaf siyaasiga qarriban wuxuu qalloocshaaye ummad shiikha iyo qaadigii iniba qoys raacday wadaadkeedu qowlaysatada qalabka siinayo odayada oo ay qudhaab iyo dhadhamo quud u dirirayso odayada qadaadiicda jecel qarash in loo dhiibo maqajilaha dhaqankii qallibay kii qalbiga beelay iska daa waxay kaa qaldaan kaa qabjabiyaane bal qiyaas markuu qaadigii qaybka yahay hoogga qabqabluhu siduu noqonayaa waa qisiyo yaabe marka wadaadkiiba dee xarkaha goosto talo qabqablii muxuu dee noqonayaabay ma garanaysaa su-aashu noqonaysaa afartaa khasaaraha ku hoday qoliyo reer baasne qoon yaho waxaad eeday iyo qaranjabkaagiidha afar kalena qowlkaan akhriyey quruxda suugaanta haddaan gabayga sii qeexo oon qunugu luuqeeyo maansada waxaa igu qasbiyo qayladiiyo heesta intaa waxaan la qowdhamayoen jiif u qaban waaye qabyadaadan aan cidi gufayn dhee kastaba qaawan shidaal qaraaqa macdan qaaliyo qani ah oo buuxda nimco laga qadiyo dahab qotoma laga qadayn waayey iska daa wax quud kuu jariyo qarashkii weynaayo dheeman aan quraac goyn karayn qolof yaroo liina qolqolka iyo meeshii kastaba qubanoo taaltaala malyuumaad qudhaabkoo ah iyo badahan qaabaysan adigaa qadoodiga ku nool qaaradoo dihine qaadhaanka reer yurubintaad qiimo gelinayso khayraadkan buux dhaafaybaad qodan lahaydeena quursiga maxaa tolobku baday waa qisiyo yaabe afartaa qaloombiga naftiyo qara dhammaankayga afar kalena geeraar qotoma qunugu laafiyoodka gabaygayga qowlkiisa iyo qodobadiisii dhe qaafkii haddaan sii wadiyo qaacan kugu yoomay qaylada haddaan qeexo oon sababta qaadqaado qoon iyo dad adigoo ahoo qab iyo maamuusle waxa uu asaagaa qabsaday culiyey qayrkaagu waxa adiga kaa qariyey baan qaadan kari waayey quuriyo hurdaad kaga jirtaa qaabkii nololeeda qoolkii dib ha u gelin mar kale waad qawiranteene ummad yahay qalloocaaga galo qaacan kugu yoomay ka ilbaxa qabiilkii iyo tolla-ay eeday qabarkaasee sharciga iyo qaynuunka galo qoonta nabarkaaga diinteenna qaaliga ah iyo qanigu suu sheegay qira maxamed quwadii aliyo qowlka nabigeenna calayhi salaatu wasalaam qanci eebe duulyahow qushuuc waad qatalanteen qumanuhu waddadu qeexay iyo qaada hirinkeeda ha qarbudin qanicada islaam qoonyow libintaada qiyamkaagii soo celi mar kale waad qarribanteene rabbi lagama quustee quwii qaaca murugtaada alla ilahe dareemaha qarbudan waa qalbi la-aane iimaanku maantuu qallalay maanku qoyi waaye waa kaa wanaaggii qallibay qiimihii beri ee ummad yahay qur-aankiiyo akhriya qowlka nabigeenna calayhi salaatu wasalaam inahaa qadeeyaya haddaan qunuga laafiyoodo waxa aan khasaarihii horiyo anigoo waxba yaan khasaarihii horiyo muujin qadafkiiyo kulligaa qiraaraad ka tahay qaranjabkaagii iyo quustaa haddaan kuu sawiray qaadan kari waaga qaladaadkii waagii haddaan yaraha qaadqaaday qaylada bal aan soo afjaro qodobka suugaanta gebagebo haddaan soo qatimo qarowga laabtayda qaafkii waxaan kaga tegiyo quruxda geeraarka qorshayeelo soomaaliyey qabarku naafeeye qaangaadha duulyahow haddaba qaata gabaygayga haa gabaygaa khasaare runaantii gabaygaa khasaare waa gabay macno weyn xambaarsan soomaalidana dhinac kasta kala hadlaya hadday tahay xaggii qabyaalada hadday tahay ciddii ay dooranayeen oo ereyada gabayga waxaa ka mid ahaa nimaad qabiil kusoo doorateen baad qarannimo ku dudaysaa waaba laga gardaran yahay ku sheegaa sidiqo waa laga gardaran yahay ninkaas sax waayo aniga qabiil baa soo doortay qabiil baa kursiga keenay qabiil baa kursiga igeeyey hadda ma fahanteen oday baa i waday qabiilayste ah oo dee nimanka dadka iibiye ah anigu nimanka aad baan u nacabahay sax
marka in la yiraahdo muxuu qaranka isugu wadi waayay muxuu hadalka qabyaaladiisan ugu hadlayaa muxuu waxaan u leeyahay de waa laga meesha ku yimi maxsuulka qabyaalada ka soo baxaya in qarannimo loogu dudaa waaba khalad bade waaba khalad ba waaba inaga ka gardaran inaga ka gardaran hadduu ummadda kala qaybiyo hadduu qayb u jaro hadduu wuxuu doono sameeyo wuu ku saxsan yahay waayo waa waxaan ku dooranay bad Soomaa marka taa laga waantoodo baad leedahay mid kale waxyaabo kale aan la yaabo waxa kamid ah qof isagiiba xumaan faraha kula jira haddana ilaahay doonayo inuu wanaag ka sugayo oo wanaag u dudaya taasina waa mar subhanallah marka hore caadi noqo markaas wax wanaagsan helaysaa marka hore qof naftiisa waa daahiriya ilaahay baa marka adigu daahirto baad wax wanaagsan heli kartaa maxaan ku dhahdaa adigu xumaan faraha kula jiro waxa doonto sameeynaya haddaad tiraahdo ilaahu sidaa noo yeel oo maxaan ku dhahdaa halkaaga xumaantii ka siimaysato ee kulli siba yar qaloocan tahay ma garanaysaa ilaahay waa deeq ma waayo waa gacmo weyn ma garanaysaa laga ma dayrin karo xaqiisa laakiin qof xumaan faraha kula jiro oo wanaag u dudaya de kulli anigu soo suurtagelayso ma garanayo aad iyo aad maasantay abwaan waa gabay aad iyo aad macno badan sameynaya isla markaasna meelo badan taabanaya isla markaasna Soomaalida dhinac kasta kala hadlaya waxaana muhiim ah in Soomaalidu ay kuwaana qaadato oo ay iska deyso siyaasigan ay ku soo doorayso qabiilka hadhow toorana ay qaran ugu doodayso fadlan haddii uu muuqaalku ku soo gaadhay like ta saar share tiyo comment-tigana soo badi haddii aad nagu cusub tahay oo aad tahay markii koobaad aad soo booqatana fadlan subscribe noo saar intaan ku kulmano branch lamida waxaan kaga teginaa sidaas iyo nabadgelyo iyo nooli kulantay bye